oo barnaamijkan u soo dhabar adeegtay juhdi fara badan oo soo muujisay waa maasan tahay gudoomiso iyada ayaan rabaa halkan uga waco oo ujeedada ugu weyn ee barnaamijka maanta halkan aan u joogno qofka asaasay fikirkeeda lahaa isku haysa sida ka muuqata dhaqankii hidihi dhaqankeena ay ku leebisan tahay quruxda badnaa waxaan ka sii codsanayaa kooxda dhaantada haweenka inay halkan noo soo istaagaan markay marwe xirsiyo qudbeyso dhaanta qac inay nooga siiyaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijkeena sanadlaha loogu magac daray bandhiga haweenka ganacsiga Soomaaliyeed waa sanadkii labaad oo ma aragtay la qabanayo waxaan aad ugu faraxsanahay sanadba sanadka ka dambeeyo inay gabdhihii ay fahmayaan ay soo galayaan ay ma aragtay raboonayaan ay nagu soo biirayaan waxaan leeyahay ganacsiga la'aantiis nolol ma bay jiri lahaynbo sida la og yahay burburkii wixii ka dambeeyay haweenka ganacsatada ee suuqa fariistay waaye waxa maanta wadanka horumarkiisa qayb weyn ka qaatay marka aad waxaan ugu faraxsanahay inay ganacsatadii gabdhihii yaryarka ahaa gabdhihii jaamacadaha ka soo baxay wadankeena waa iska ogtihiin wali shaqooyin iyo dawlad wasaarado aad u badan oo laga shaqeynayo ma jiraan laakiin waxaan anigu ku booriyaa intay xafiis iyo shaqo raadin lahaayeen inay ganacsi furtaan wax ayaga ay leeyihiin oo wadankana waxtar u leh ayagana waxtar u leh adduunkana la tartami karaan inay ka shaqeeyaan ayaga businesskooda ama ganacsigooda ay samaystaan aadaan ma aragtay aan ugu faraxsanahay maanta barnaamijkan ganacsigeena waxa ka buuxa sida aad ku soo aragteen kilibyadii hore inta ganacsi laga ganacsado ha ugu badnaadaano dhinaca khayraadka wadanka waa kalluunkii waa xoolihii iyo beerihii iyo inta kale oo soo raacdo dareeska aan ku libisanahay dadka keenayo wixii la dhoofinayo wixii la keenayo waxaan isleeyahay ma u baahna inaan idinta tilmaamo shaashadaas maanta idin akhrisay oo idin wada tustay haweenka Soomaaliyeed iyo horumarkooda iyo waxqabadkooda waxaan aad u salaamaa gabdhihii martida ahaa qiimaha badan lahaa ururkeena diiwaan geliyay ururkeena Somali Women in Business wuxuu ka diiwaan gashan yahay commerce qaybteeda federalismka oo haweenka ku midoobay commerce ganacsigooda marka aadan u soo dhaweynaa waxa kamid Ruth waxa kamid Saham waxa kamid Mamba kulli gabdhahaana dhan marti ay noo wada yihiin qof kastana iyada hadli doonto oo qiiradeeda iyo farxadeeda iyo ka sheekeyn doonto aadan idin soo dhaweynaa barnaamijku noo socda howlo badan aan noo dhiman waa idin salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh